kaarnaho kala socwado. bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada barnaamijkii aynu uga hadli jirnay deegaanka. maanta barnaamijka waxaynu uga hadlaynaa khayraadka dalkeena. khayraadka waddankeenu waxa uu ka kooban yahay noocyo badan sida khayraadka badda, kalluunka, khayraadka beriga sida beeraha, dhirta, fooxa, shidaalka iyo macdanta dhulka hoostiisa ku aasan. macdanta dhulka hoostiisa ku aasan ee waddankeena waxaa ka mid a macdanta loo yaqaano uraniumka ee laga dhaliyo curiyaha atomikada ee hubka sida ba-an wax u gumaada laga sameeyo. macdanta uraniumka waddankeena waxa ay ku kaydsan tahay gobolada galguduud iyo baay. intaas oo keliya kuma eka khayraadka waddankeenu, waxaa kaloo khayraad badani ka buuxa buuraleyda calmadow ee gobolka sanaag. buuraleyda calmadow waxa ay dhulka ka sareysaa qiyaas lagu qiyaasay 700 ilaa 800 oo mitir marka laga cabir qaato qiyaasta jooga badda. calmadow waxay dheeraad la tahay roobab badan iyo ceeryaamo ku geydaaman habeen iyo dharaarba. waxaa kaloo ka da-a buurahan roobka jiilaalka da-a ee loo yaqaano wajiinaha. calmadow waxaa kaloo ka baxa geedka loo yaqaano dayibka oo laga sameeyo alwaaxda guryaha lagu dhisto. sidoo kalena alwaaxdaas waxaa laga sameeyaa sariiraha ayaa laga sameeyaa. waxaa kaloo calmadow ka baxa dhir badan oo ay ka mid yihiin geedka la yidhaahdo meydiga ee loo eebgeeyo dalalka gacanka carbeed. jararka biyuhu kasoo rogmadaan ee loo yaqaano lamadaye waxay qeyb weyn oo ka mid ah ay ka qaataan bilicda iyo quruxda eebbaweyne ku manaystay deegaanka calmadow. biyahaasi waxa ay faa'iido weyn u leeyihiin beeraleyda iyo wax soo saarka. biyaha jararka dhaadheer ka soo dhaca waxaa kaloo laga dhalin karaa dabka korontada laga sameeyo. qulqulmaayadeedka biyaha buuraleyda calmadow waxaa ku aasan macaadin qaaliya iyo dabiicad wanaagsan oo u roon xoolaha iyo bini'aadamka. haddii laga faa'iideysto calmadow waxay kaloo fure u noqon kartaa shidaal baarista waddankeena. calmadow waxaa ku duugan nooc gaaska dabiiciga ah oo weliba aada ugu eg kan laga helay waddanka yemen ee aynu jaarka nahay. calmadow waxaa ka baxa dhir ka badan 1000 geed oo 200 oo ka mid ahna aan laga helin dunida inteeda kale. sanadku markuu ahaa 1995 calmadow waxaa booqday koox khubaro ku takhasusay cilmiga dhirta ee uu hogaaminayo Dr. Matis Thulin. kooxdan uu Dr. Matis hogaaminayeyna waxa ay ka tirsanayeen jaamacadda Uppsala ee waddanka Sweden. mashruuca cilmi baarista waxaa lagu magacaabay Flora Somalia Project. waxa uuna noqday mashruucani kii ugu qotada dheeraa ee abid laga sameeyo buuraleyda calmadow. waxaana intii ay cilmi baaristu socotay shaaca laga qaaday ilaa 8 nooc oo dhir ah. waxaa kaloo cilmi baaristani caddaysay in calmadow ay guri u tahay macaadinta muhiimka u ah abuuritaanka dhirta. sidaa awgeedna in la ilaaliyo calmadow muhiimad gaara ayay u leedahay dhulka Soomaaliyeed oo dhan.